السلام عليكم. عليكم السلام. والشيخ هاي وشيخ سؤالها دين داي soo شيخ dhawaada وصلا saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin. soo dhawaada Ramadaan mubaarak. waxaa رمضان si كريم leefa ugu ساعة jirtaan barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta. marka laba su'aalood oo diini aan idin weydiinayaa haddaad garataan si wanaagsan haddaad isku daydaan si wanaagsan هي marka mid من weydiiya ويديسا ها شيوخ بان waayahay aad baad mahadsantihiin. su-aasha koowaad waxay ku leedahay kumuu ahaan yahuudigii nabiga sixray sallallahu calayhi wasallam. أبجهل 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 بقى isku daygu waxa weeye saddex jeer weeye saddex jeer ba isku daysaa أبجهل ما يهرت may ماي yahuudigii nabiga sixray هو جرين هاي نيو تاس كده لكن ما جرين هاي والله نيو haddaad garan weydaan waa idin faa'iideen waa idin sheegaya نفع إذا ساعة waayahay yahuudiga nabiga sixray magaciisa waxaa la odhan jiray lubayd binu axsam لبيدا lubayd binu axsam ayaa la odhan jiray ما شاء الله صح جسنك فايدني تاكيو أخلاني ساعة تكلمنا أنا ودي waayahay su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa malagga suurta afuufaya maalinta yawmal qiyaama وركا malagga suurta afuufaya maalinta yawmal ملك جبريل may su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa malagga suurta afuufaya maalinta yawmal qiyaama suurtu afuufaya maalinta yawmal qiyaama إسرافيل waad garateen والله aad baad u mahadsantahay israafiil weeye aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiib sida wanaagsan ee sharafta leh aad su-aalaha iskugu daydeen aana uga jawaabtay saaxiib برتا كودنيو haye saaxiib aad iyo aad baad mahadsantahay sida wanaagsan aad uga jawaabteen aad iskugu برتا daydeen وجودي يقرنا صاحب هروس وعام كلنا صاحب دينتنا صاحب صاحب فافي يا aad baad mahadsantahay saaxiib aad baad mahadsantahay أي صاحب sharaf iyo karaama aad baad mahadsantahay saaxiib asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawaada saaxiib waxaa si leefa ugu jirtaan barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta marka laba su'aalood oo diini aan idin weydiinayaa haddaad isku daydaan waa si wanaagsan haddaad ka jawaabtaan waa si wanaagsan marka diyaar ma tihiin diyaar baan anigu weydiin laakiinse su'aalahaasi hore haddaanu ka jawaabno wax ma lagu helayaa may waxba lagu heli maayo haddaad ka jawaabtaan dadka idin daawanaya faa'iido u tahay dad badan baan garanayn haddaad garan weydaan aan idiin sheego jawaabtana idinka faa'iido idin okay haddaanu garanayna insha allah waan isku dayantan garanayna noo sheegi kartaa haye su-aasha koowaad waxay idin leedahay waxaad sheegtaa asxaabiga abudar alqafaari magaciisa caadiga ah sheeg haddaan isku daya aniga isku dayguna waa saddex jeer ba qof isku dayaya labadiina waa isku dayi kartaa okay hadsana qafay haddaan isku fiiriyo nebi ayub والله قرن يعني قال ودي ميجي حق ميجي سنة قناة ميجي سدح مقرن منه ميجي سعادة ونوشك تي حقنا ودا ساقري may abudar alqafaari magaciisa dhabta maaha مقع ha magaciisa dhabta waa isku dunay اوكي قرن من ساحني يسوع سام انت كلام ودي تكلم ودي يعني waayahay weydii نوشك waayahay saxaabiga abudar alqafaari magaciisa dhabta waxa la yiraahdaa jundub binu junaada ayaa la yiraahdaa asxaabiga abudar alqafaari magaciisa dhabta ah waayahay waxaynu u gudbaynaa su-aasha labaad su-aasha ugu dambeysay waxay ku leedahay su-aashu waxaad sheegtaa gabadhii ugu horeysay ee rasuulka rumaysa haa way fududahay هذا اسكو ضيع 10 ثانية laba idii hadhay laba isku day خديجة waad garateen خديجة والله نيتك كويس waa xaaskii rasuulka ugu horeysay waad garateen aad iyo aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan ee sharafta leh aad iskugu daydeen su-aalahan aad uga jawaabteen aad iyo aad baad mahadsantihiin haye waan kaa qaadnay saaxiib qofka xigaan u gudbaynaa aad baad mahadsantahay saaxiib asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawo walaal qaali Ramadaan mubaarak waxaa si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta marka laba su'aalood oo diini inaan ku weydiiyo diyaar ma u tahay haddaad isku daydo si wanaagsan haddaad ka jawaabtana si wanaagsan marka yaan ku weydiiyaa diyaar ma u tahay
هاني ويدين waayahay aad baad mahadsantihiin su-aasha koowaad waxay ku leedahay bishan rabadaan ee lagu jiro waa bisha imisaad ee islaamka bilaha islaamka ee hijriga waa bisha imisaad bishan rabadaan ee lagu jiro وحوي بشي su-aasha waxay ku leedahay bishan rabadaana iminka lagu jiro bilaha islaamka waa bisha imisaad bilaha hijriga بشي Maati wala? ليحي تمنات بن ملايين 16 ah 16 ma gaaraan bilowye 12 ba ku dhamaadaan حبيبي ماشي marka waa isku dayi kartaan haddaad garanayna jawaabta waan ku sheegaya طلباتي شيء طلباتنا ويدين su-aasha koowaad aad garan weydeen haddaa idii faa'iideeyo waa bisha sagaalaad ee bilaha islaamka weeye rabadaan bilaha hijriga bisha sagaalaad weeye rabadaan marka bishan rabadaan waa bisha sagaalaad ee hijriga aad baad mahadsantihiin su-aasha labaad ayaan idin weydiinayaa su-aasha labaad waxay ku leedahay dagaalkii ugu horeeyey ee rasuulka iyo asxaabtu ay galeen sheeg su-aasha waxay ku leedahay dagaalkii ugu horeeyey ee nebiga iyo asxaabtu ay galeen sheeg dagaalkii ugu horeeyey ee nebiga iyo asxaabtu ay galeen marka way isku dayi kartaa waan dhigtay wiil حاضر دوس عربا su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa dagaalkii ugu horeeyey ee rasuulka iyo asxaabtu ay galeen magaciisa dagaalka أصحابته iyo rasuulku ay galeen رسولك كيبوها محمد rasuulku waa muxamed sala allahu calayhi wasalam marka rasuulkeeni muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu dagaalkii ugu horeeyey ay galeen sheeg markaas isku daygu waa 3 jeer haddaad garan weydana waan kuu faa'iideynaya waan kuu sheegaya wax dhibaatan maxaa tiri su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam dagaalkii ugu horeeyey iyo isaga iyo asxaabtu ay galeen ee gaalada ay la dagaalameen marka haddaad garanayn waan kuu faa'iideynaya waan kuu sheegaya gpt-gaad weydiinaysaa dee ka daa weydiine والله جبت chat gpt-gaad weydiinaysaa yaa والله مو دين والله ابن مشرة جبت waayahay miyaad garanaysaa mise waan kuu faa'iideeya waayahay aad baad mahadsan tahay dagaalkii ugu horeeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu ay galeen waa dagaalkii beder weeye dagaalkii ugu horeeyey asxaabta iyo nebigu ay galeen waa dagaalkii beder weeye maanta dhamad soo saartay marka aad baad mahadsantihiin walaal qaali sida wanaagsan aad iskugu daydeen su-aalaha way ka boodeen babig asalaamu calaykum وعليكم السلام زاهر soo dhowow saaxib qaali rabadaan mubaarak waxaa si leefa ugu jirtaa barnaamijkii su-aalaha ee rabadaanta marka laba su-aaloodoo diiniya inaan ku weydiiyo diyaar miyaad u tahay haddaad garatana oo si wanaagsan haddaad isku daydana oo si wanaagsan ساعة ديني هذا وعي ديني أو الود بابي مقتل سو مركز أنا قرنين أو وكان قابسنا يا marka iskuma daysid yaa ساسله ما يوديو وعي قرن ما يقول يا مركز may waa caadi waxaad isku daydo aad garan weydo waa caadi waan kuu faa'iideynaya wax dhibaato ma leh أي marka waan kuu faa'iideynaya waxaad garan weydo sax إن شاء الله ساعة أي waayahay aad baad mahadsan tahay su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa gabadhii muslimadda ahayd ee fircoon xaaskiisa ahayd magaceeda gabadhii muslimadda ahayd ee fircoon uu qabay ee xaaskiisa ahayd magaceeda lagaa doonaya ما قرن يلا ساعة waayahay maan kuu faa'iideeya kuu sheegaa إيشك طبعا magaceeda aasiya la dhihi jiray إن شاء الله أي دي واي موبايل هاي. waayahay aad baad mahadsan tahay su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay habeenka laylatul qadriga imisoo bilood ayuu ka khayr badan yahay habeenka 10 dambe rabadaan ku jira صلوات السنة
may isku daygu waa 3 jeer weeye mar waad gara weyday laba ku haray isku dayga habeenka leedo qadriga ma oo ha habeenka laylatul qadriga imisoo bilood ayuu ka khayr badan yahay imsabil imisoo bilood buu ka khayr badan yahay habeenkaas bilaha dhan ha imayde habeenka laylatul qadriga ma garanaysaa imisoo bilood buu ka khayr badan yahay imisoo bilood tirada inta bilood uu ka khayr badan yahay waa imisa habeenka kaliya laylatul qadriga inta bilood uu ka khayr badan yahay laga doonaya waa imisa hata quraankana lagu sheegay warsaay wallahi ma hay waayahay saaxiibaad badan maasanta ku faa'iideynaya habeenka laylatul qadriga wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood oo ka ilaahay subhanahu wa ta'ala leh laylatul qadri khayru min 1000 shahr oo ka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegaya marka saaxiib aad iyo aad badan maasanta sida wanaagsan aad iskugu dayday su'aalaha maasanta saaxiib Abdullah waayay barasho wanaagsan Abdullah anigana Maxamed Wardi baa la yiraahdaa barasho wanaagsan aad iyo aad badan maasanta saaxiib sharaf iyo karaam aad badan maasanta qofka xigaan u gudbayna aad badan maasanta saaxiib استاجا كريدينا السلام عليكم وعليكم السلام soo dhawaada walaal qaali Ramadaan mubaarak waxa si live ah ugu jirtaan barnaamijkii su'aalaha ee Ramadaanta marka laga su'aalado diiniya inaan video diyaar bad u tihiin haddaad ka jawaabtaan oo si wanaagsan haddaad isku daydaan oo si wanaagsan marka waa laga su'aalado jilicsan اديد على سنة aad maasantihiin marka su'aalahan idin weydiinayo insha Allah u diyaar garooba su'aasha koowaad waxay leedahay habeenka Ramadaan ku jira ee laylatul qadriga imisoo bilood ayuu ka khayr badan yahay سديتن إلى بس سنة ضوء سديتي لي أجر ولا مديا شهر حواي بر هاي su'aasha mar labaad baan ku celinayaa habeenka laylatul qadriga ee Ramadaan ku jira imisoo bilood ayuu habeenkaas ka khayr badan yahay ilaahayna quraanka ku sheegay قم بلاد من 1000 شهر واي كنوا kun bilood way aad baad maasantiin waad karateen su'aasha labaad ayaan idin weydiinayaa su'aasha labaad waxay ku leedahay su'aasha labaad way fududahay aad bay u fududahay su'aasha labaad aan idin weydiinayaa waxa weeye naartu imisoo albaab bay leedahay midun ku adkaysta mid ku adkaysta تضبط 7 waad garateen aad baad maasantiin aad baad maasantiin saaxiib sharaf iyo karaam aad baad maasantiin فكرة aad iyo aad baad maasantiin ayo saaxiib aad iyo aad baad maasantiin